SNM siyaasadeeda koowaad waxay ahayd in shacibka la laayo la kiciyo inay shacibku kacaan oo ku soo biiraan oo la laayo horaan idinku sheegay dejiye ama qaboojiye iyo maxay tahay qarxiye horaan idinku sheegay diiriye iyo dejiye horaan idinku sheegay inuu bolisiga SNM uu ahaa in dadka shacibka la laayo la kululeeyo waa kii hadraawi lahaa daldalaada boqol kala daran isugu xidha walba dahabka ku dhalato يعني دبكا كشدان تبو دعرتا كشدان تبو ليه يعني marka aad boqol isku xidhaan dacarta ku shidmaysa oo dadka ka caya marka bolisigeed waxa in dadka la laayo totally maanta ninka igula murmaya ee Soomaaliyeed ee ugu leh SNM badbaadinaysa ama waxay ka dagaalantay dadkeedii la laayo SNM siyaasadeedu waxay in dadka la laayo shacabka si ay dadku u kacaan taasay ahayd su'aasha isweydiintani markii taa bolosigoodu ahaa yaa dembiga leh markayse guryihii iyo dumarkii ugu galeen ee ku soo rideen hubkii wariya dembigeeda loo raacayaa yaa dembigeeda loo raacayaa ummadda Soomaaliyeed waa iga su'aal waayahay kumanaan shacib baa ku dhintay haddaba bal u garnaqa ummadda Soomaaliyeed annagu cadow baanu u tagnay SNM cadow bay u tagtay hub ka soo qaadatay oo xagga dambe ka riixayay askartii bay ku soo duushay inay dalka burburiyaan iyo qaranka Soomaaliyeed bay doonayeen sidaa dhacday maanta haddaba ku hadlaya iyo ummadda Soomaaliyeed aqli aan garanayn waxa kaga dhacay ee maanta la leeyahay lagu akhriyo waa dulmigu siyaad barra ka galay iyo ragga ku afgobaadsanaya ee la dulmigu siyaad barra ka galay reer waqooyi ama isaaqiisamkii dulmi baa laga galayo idinkaa dulmi ku jira oo cadaalad darro ku jira oo been iyo munaafaqad ilaa maanta igula hadlaya ummadda Soomaaliyeed ilaahay na kula hadlaya oo u sheegay ilaahay been iyo ummadaba garnaq bay u baahan tahay bal kaliya hayla garnaqsado hay soo jawaabaan waxaan kaga baxayaa ummadda Soomaaliyeed dunuubtaanu galay ee qaranka Soomaaliyeed ka galay iyo ummadda Soomaaliyeed ka galay waan ka raali gelinaa ummadda Soomaaliyeed dembigaanu ka galay ilaa maanta beenta aanu intaanu qarankii burburinay la daba socono ummadda Soomaaliyeed horaan idinka raali geliyay ku noqon waxaan kala uga gudbayaa maalintii aan Itoobiya u baxnay waxaan idinku idhi ragga aaminsan eele waana la laayo markaasaanu kacnay oo SNM noqonay oo dowladdii la dagaalanay because waana la laayo khayr ahaan baa naloo laayay bay idhahdeen hore waxaan idinku sheegaan caawana ugu celinaya mar labaad waan ugu celinayaa 1981 baan idinka soo qaadayn mar kale idinku celiyo haddaan dhegtiinna waxba maraynin ummadan qalbul marjaca lagu riday 30 sanadood oo aan mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad ba idinku diso waxa la idinku waa leeyna laayay siyaad barray dawladii weyna leysay reer bay ugu leysay isaaqiisan bay ugu leysay ayay ugu leysay 1981 waan idinka sheekeeyay dawladdu waxay noo qabatay maanta waxaan ku soo qoray halkan siyaad barre biyo dunuub ka galay iyo dembi dadka reer waqooyiga wuxuu ma ka jawaabayaa markaas siyaad barre reer waqooyi horta marka hore dembi kama gelin reer wax la yiraahdo islaayeen reer waqooyi waa konton iyo konton qayb ka mid ah oo qabiil alliance hore saan idinku sheegay oo isaaq la yiraahdo oo laakiin ka kooban dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad kale oo ajaanibaba ku jiraan oo hagbad alliance ku wada jira ayaa siyaad barre iska hor yimaadeen dawladdiisii oo ay ku kaceen siyaasad ahaan ugu kaceen markay sidaa tahay kontonka soo haray waa Sool Sanaag bari iyo meesha la yiraahdo Awdal intaasi kuma jiraan tirada hal qofna lagama dilin iskamanay hore iman dawladda haddaba mar walba waxaan maqlaa reer waqooyi waa la laayay reer waqooyi waa la xumeeyay reer waqooyi sidaan baa loo galay waxaad tidhaahdaanuun qabiilka isaaqa la baxaya alliance-ka dhaha ama iskaashatada ama hagbadda dhaha 1981 ama
1981 waxaan hore idinku sheegay qaranka dhan ee Soomaaliyeedba in dhaqaalihiisina lagu wareejiyayba gabigiisaba awooduu lahaa dalku ilaa gunagada halka ugu dambaysa ee gunagada la yidhaahdo ee kilalka shanaad iminka loo bixiyey ama Soomaali galbeed iyo ilaa Qobiyo ilaa Beledweyne feer xoolaha jooga baa la yidhi meelaan berbere ahayn kama dhoofi karaan hadalkayga bal si fiican u dhegaysta mar labaad meelaan berbere ahayn kama dhoofi karaan dekada Kismaayo waa la soo xidhay dekada Boosaasna waa la xidhay dekad kale bay fureen markii ugu dambaysana waxa la xidhay dekadii Muqdisho ninka Kismaayo jooga wuxuu raashin ka soo doonan jiray berbera waa qodobka labaad waxa la yidhi xoolaha dhoofaya ee ummadda Soomaaliyeed oo dhami ay leedahay Central Bank wixii lacag taalayba waxa la soo dhigay Burco iyo Hargeysa 90% waxa la soo dhigay Burco iyo Hargeysa jawaan ictimaad baanu soo furanaynay jawaanaan ku qaadaynay waxaanu la tagaynay dhulka waxaana loo qiyaasay neefkii 60 shilin iyo 50 shilin marba wuxuu ahaaba marba uu yar kacayay waxaanu sameynaynay khiyaamo neef laba jiro jidaawi baa la yidhi soo iibiya mid gu iyo bar jiray oo ka jaban baanu ku kabaynay kan oo laf dheer waxaanu sameynaynay adhiga adhiga la yidhaahdo iyo adhiga la yidhaahdo maxay ahaatay adhiga kilalka shanaad oo dhaadheer oo nogob la yidhaahday iyo adhig woodhaqa oo gobollada dhexe oo dhaadheer laba jir baanu neefka ku sheegaynay laba jir ayaanu neefka ku sheegaynay oo aanu ku soo iibinaynay halkaa lacag baa ka soo hari jirtay inta gawaadhida la soo saaray la yidhahdo way ku dhimatay na 3 goor baanu laba laabi jiray amiin waayahay marka xoolahaasi dhoofaan 20% baa hadda waa lacagtii Soomaaliyeed 20% faa'iido baa naloogu reebay bangiga dabeetana maraakiib raashina lagu soo rari jiray waxa guri dhisan inta laga dhisay taas ahayd waxa loo soo shaqatay ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa soo shaqatay halkan la isugu keenay faraga furuta loo furay bila cashuur bas inta idin sheegay oo loogu daray oday iyo habarba tijaar bay noqotay horaan idinku sheegay 1981 ka laga sheekeynayo 1978 baa naloo furay markii dagaalka laga soo noqday 1981 ka laga sheekeynayo waxaan baanu haysanay warshada sibidhka iyo warshada laas qorayba reer waqooyiba ka shaqeynayaba kumanaan qof mareerina anaga haysanay yaa oran kara waa been mareerida dogada 10 ku ka shaqeynaysay waxa laaliyo waxa u kala sareeyaa ina aadan dhari baa soo xafiiskii weynaa Muqdisho joogay waxa laaliyo waxa ka shaqeeyaba 80 waxa waliba isaaq ayahay kumanaan baa mareerina ka shaqeynay waa koonfur iyo waqooyiba waxaan kaloo su'aal idinka weydiiyey hal qof oo xidhnaa ii soo sheega hal qof oo laga dilay ii soo sheega ninkii uu Ismaaciil Cali Abakar ku marxaat fura beenta ka sheegay ee ina caynaasho guuleed mooyaane ay yiraahdeen inqilaab bay wadaan mooyaane hal qof oo laga dilay kuma ii soo sheegaya in badan baa qayliyo allaha ii soo sheega waxa ka kacdeen beenay waa run hal qof kama xidhnayn tuug mooyaane iyo mid akhray mooyaane iyo mid diinta caay mooyaane qof kama xidhnayn siyaasaddu kama xidhnayn bal hay sheegaan ragga maanta meelaha ka leh waa la laayo markaas ay kaceenow bal hal qodob iiga sheeg oo ay ka kaceen dalka dhanba waa naloo xidhay dhaqaale ahaan baa naloo xidhay dalka dhanba ummadda Soomaaliyeed intii ugu badnaydna waxay uqooyi inay tagaan oo ka shaqeeyaan bay doonayeen waayo lacagtii ummadda Soomaaliyeed iyo baaxmistarigii baa la isugu keenay su'aasha jawaabteedu siyaad bare ummadda waqooyi ma waxbuu u qabtay oo ummadda Soomaaliyeed wuu uga hiiliyey oo wuu uga eexday mise waxbuu ku sameeyey waa su'aasha maanta meesha taala nin kastoo run lawo alla yaqaana oo ilaahay yaqaana oo dhaqan leh oo diin leh oo iimaan leh siyaad bare wuxuu noogu hiiliyey ummadda Soomaaliyeed oo xaq darro iyo cuqubo
dheeraad wuxuuna siicad dheeraad oo ummadda Soomaaliyeed oo naga sii inta kale waa lala wareegay waxa la iskaashatooyin noqda xoolaha nool annagu mu noo daayo gudidana annaga ahayd Kismaayo basbaas nin la yiraahdo kontract ku haysto looda ka rari jiray ma reer Kismaayo ma joogaan ma ku jiraan halka reer Kismaayo wadalka Soomaaliyeed ilaa kilalka shanaad xoolahooda annaga gacanta naloo soo geliyo ka faa'iideyni dadka lacagtii aanu ka soo siisanayna intaanu amaah kaga soo qaadano ayaanu intaanu dhoofina ka faa'iidnay markaasaanu haddana raashin intaanu soo qaadnamanu dadkii xoolahoodii ugu bedelaynay raashin 3 goor baanu ka faa'iidi jirnay neefka shilinna lacagta kumaanu lahayn ee Central Bank ka lahaa waxaan in badan idin weydiiyay ummadda Soomaaliyeed bal wuxuu siyaad bare nagu sameeyay noo sheega ee aanu ka kacnay hal qodob ii soo qora waxaan live kaga jiraa YouTube-ka iyo Facebook-ga labadaba waxaan ummadda Soomaaliyeed in badan baa dulmina dul saarteen oo lahaydeen siyaad bare duqeeyay oo laayay oo reernimo u laayay markale wax ka hadlaya ma arag laakiin anigu ma aamusi karayo nin aamusi karayay maahi oo cuquba iyo dulmi 3 sanadood dhageysan karaya waxaan idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaa maanta nahaysa cuqubadii aanu ka galay dowladda siyaad bare wuu noo hiiliyay siyaad bare wuu noo hiiliyay in badan bay cabanayeen oo lahay wax annaga dheeraadana lama siinin haddaanu cayn ka nahay siyaad bare wuu noo hiiliyay dhaqaale ahaan buu noogu hiiliyo baawar buu noogu hiiliyay ninka dhaqaalaha haysto ma baawar haysaa cunuhu ummadda Soomaaliyeed oo dhan intuu xarig ku soo qabtay iyo annaka noo keeno yidhi iyaguna xoolaha dhoofin karaa xoolihiin oo dhan iyaga gacanta ka gelinaysaan lacagtii Central Bank kana iyaga lacagta gacanta laga gelinayaa yani wax walba qofna nagama xidhay hal qof ha sheegaan barcaar oo siyaasad loo haystay waxay igu soo jawaabeen hadraawo ninka la yiraahdo si fiican ii dhageysta ummadda Soomaaliyeed ii ka xogaa doore waxay yiraahdeen markii aan habeenkii dhood ka codsaday soo sheegay waxay yiraahdeen hadraawo xidhnaa bay yiraahdeen oo siyaasadu xidhnaa hal qof bay qabsadeen وقرونتا دن إلى وان للرجوع وان لا يوان للحين وحي سو شيئا هذا راون اللي يراهدو هذا راون هذا وانا قلت شواب يكون يسوق رايو وحن إذا كون عريان إذا كون حلين يسوق شيئا نتين يدو حنا وعيقولنا هذا راوي أبدا قيس مركا مو حنا مركي ضبال حنا وانا الزود هاي برضه وحن لو حنا الرجع اشكتي كوي قبل كلت شريبه هاين إذا كان عارف دوران كرنت هنا هذا وحو جوغي ماشي لا قصح ديره ديسيغا ماشي هايستay degmada gurigu deganaa waxa ka soo horjeegay guriga martida wuxuu la deganaa oo laba qol laga siiyay gurigii dhiisayga bal dadka si wanaagsan u dhageysta hadraawa la xidhay baa maqashaan anigu inuu isagu yidhi war ma hayo waxa dunida loo geliyay hadraawa dowladda Soomaaliya xidhay gurigii dhiisaygu deganaa guriga ka soo horjeeda isku deeriyihiin oo ay dhiisayga habeen iyo maalinba sheekaystaan ayaa la dejiyay waxa loo soo kireeyay laba qotiya oo dadkii qaxoontiga inoo yimi ahaa wuxuu dhaqday digaag beerna waa loo falay labadii qotiga ha dowladda u keentay dhiisayga waxay u falayeen beerta digaagna waa loo soo iibiyo uu ku dhaqday halkaas ku qayli jiray oo fadhi jiray dhiisayga ayuu la sheekaysan jiray bal haddaba ninka idinku yidhi wuu xidhnaa hadraawi halku ku xidhnaa car habeen la xidhay hay soo sheegaan wax badan baa laydin qaadsiiyey wax badan baa laydin qaadsiiyey oo iska qaadateen ummadda Soomaaliyeed hal habeen hadraawo lama xidhin qasax dheere mee qolooyinkii joogay dalka Soomaaliya dhiisayga gurigiisa ayuu la deganaa oo laba qolo martidu looda ka soo horjeeda buu deganaa laba qotiina beer baa la siiyay u falayeen digaagna wuu dhaqanayay ka shaqaynayay bal halka hadraawo lagu xidhay loo soo sheego ee la isaga barooriyo ee taariikhda loogu sameeyay ha sheegaan mid kaliya ha sheego nin kaliya caawa been qaan gaadhay runimo gaadho been qaan gaadhay quruun dhan oo been ku nool nebiguna yidhi ummadayda maaha maantaynu haynaa quruun dhan
oo been ku nool nebiguna yidhi ummaddayda maaha waxa been sheegaa maantaynu haynaa oo aan qof keliya oo ka joogsanaya beenta ama le ka jooga aan lahayn welibana way ka xanaaqaan runta been baanay ku dhaqan yihiin inay doonayaan oo ay ugula dagaalamayaan maxaad runta u sheegtay